بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا walalayaal channelka Abdihakim hariir insha Allah waxaan soo gudbinayaa qiso aad u cajiib ah. Waxaa jiray nin dhalinyaro ah wuxuuna doonayay inuu guursado. Kadib uu guursaday gabar aad u qurux badan. Waxayna isla noolaayeen 3 sano. Kadib Ilaahay wax ma siinin. Maalin maalmaha kamid ah walaalkiis iyo xaaskiisii ayaa gaari raacay waxayna maqleen inay shil gaari ku dhinteen. waxay adduunka uga tageen cunug yar oo ayaga dhaleen marka go'aan waxay ku gaareen labadii isqabay maadaama ay cunug la'aan ahaayeen inay cunugan koriyaan maalmo kadib sanadooyin kadib waxa Ilaahay ku irsaaqay wiil oo ayaga dhaleen way koriyeen way barbaariyeen aad bay ugu dadaaleen waxbarashadoodii kadib maalimaha kamid ah waxa dhacday wiilka ayaga dhaleen iyo wiilka kale ee istigaalay marka wiilka ayaga dhaleen ayaa dhaawac loo geystay kadib wiilka kale ayay ka fiijiyeen guriga markaas wiilkii waxay dhaheen bax naga tag oo ku soo korin inta ku soo korin karno wiilkeena ayaa rabta inaad disho kadib wiilkii uu baxay xaafadda ayuu ka tagay marka waxay noqotay inuu darbiyada jiifto uu banaanaha jiifto uu waayay cunto iyo wuxuu cuno kadib waxa dhacday in maalimaha kamid ah wiilka ayaga dhaleen inuu masaajid aaday uuna maqlay sheekh oo leh fahal asaytum anta walaytum an tusidu fil ard wa taqaddu arhamakum amaad mudantihiin inaad xaqa jihaadka ka jeesataan dhulkana fasaahadisaan qaraabadiina aad goosaan wiilkii aad u cabsaday xaafadda ayuu ku soo cararay waalidiintiina u sheegay wiilka kale inuu ka qaldana asaga markaas wiilka kale loo yeeray xaafadda u maaday waalidiintiina waxay go'aansadeen inay afis weydiistaan wiilka kale marka waxaana meeshan ka qaadanaynaa walaalayaal qaraabada inaanan gooynin qaraabada aad bay wanaagsan tahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay in qaraabada ay wanaagsan tahay marka walaalayaal ramadaan mubaarak insha Allah taala ilaahay na gaarsiyo marka khayr aan idin rajeynaya